markaana wararka Soomaalida hadii aynu eegno dadweynaha ku dhaqan deegaanka Yodo oo hoos tagta degmada Ceelwaq ee gobolka Gadow ayaa ciidamada Kenya ee deegaanadaasi ku soo ku eedeeyay falal isugu jira dil iyo inay ka haystaan dad shacab ah oo aan ilaa iyo hadda la ogeyn halka ay ku sugan yihiin geeri iyo nolol. Tuulada Yodo iyo qaybo kale oo ka tirsan gobolka Gadow waxa maalmahan ka jiray dibadbaxyo ay dhigayeen dadka careysan sida ay sheegeen dhibaatooyinka kaga imaanaya ciidamada Kenya. Haddaba dhaqane Abayle Cilmi oo ah ehelada mid kamida dadka dhibaatada loo geystay ayaa u waramay wariye Cabdishakuur Casoowe. walaal dhibaan la gaaray dib farxo baan la gaaray dawladda Kenya ciidamada lagu sameeyeen dhibkaas tan ka caawinayna hadda u fadhinaa qaar waa meedkooda waa xawaalanay qaarna oqlaana ilaa hadda meel ay ku noolyihiin. dadka dhintay waa imisa hadda dadka u dambeeyay oo taariikh 24 dhacay waxaa dhintay wiil adeer u ahay aabihii iyo laba wiil oo kalena waa lala tagay ilaa haddana meel ay ku noolyihiin meel ay ku dhaqayeen midna ma hayno. marka wiilka dhintay iyo ragga kale ee la kaxeystay maxay ahaayeen? dad shacab oo tuulo iyadoo la yiraahdo deganay ahayn ma garata 12 subax maraysa ciidamo Kenya oo xaduudka ka imaada soo weeraray wiilkan iyo laba wiil oo kale darso jiifada ilaa ku soo istaageen ninka soo baxay ilmo soo baxay oo banaanka u soo baxay xabada ma xawursa ma garata labada kale meesha ku dhaaqtay ku xireen ayagoo ku kala xiray kana dilaya yaa hoo imaadeen ninka walaalka ahaa wiilka dhintay dhalay asagana ay ku dareen ma garata saddex ruux ilaa hadda meel ay ku soo jaan cirmahayno wiilka dhintayna way qaadeen meel xaduud 5 kiiloomitir markay gudaha u guliyeen meydkiisa ay tuureen meel gudaha u guliyeen ciid ay ku gudiyeen saddex waa raadinay meeliyan ka soo leemeedka isaga ahaa waan gartay marka idinka waxaad sheegaysaan dadkan in shacab ay yihiin laakiin maxaa ku xaqiijin kartaan in dadkan ay shacab ahaayeen? dadkan dad wiligood qori qaaday ma aha xaduud ay degan yihiin waa dad rayid ah dawladda Kenya 2011 markay wadanka soo gashay iyo saacada inta ka dhaxayso 100 qof saac way dishay ma garad aniga kula hadlayo dhaqane Abayle Cilmi ah 2017 bisagaalaad taariikh wiil aan dhalay oo sinjir ay buusaar ku dishay oo dhintay ayuu cashay ilmi banaanka fadhiyay xabada ciidanka soo reeyay madaxa u dhacday sinjir waa meesha ku dhintay saacada hadda ku sheegay hadda inta ka xasuuq u socdaa shacabka meesha u dambeeyay marayaan mudaharaadka dhibka meesha u dambeeyay marayaan adduuqaad waa dhamaaday. dhaqane marka dadkan bartilmaameedsada ciidamada Kenya ee halkaas ku sugan ee weerarada ka fuliya ma wax xiriir ah ayaad la leedihiin? anagu hadda qolay Kenya iyo qolada kale hadda oo bartilmaameedka hadda sheegaysa dad rayd waa sanahay wax hadda xiriir ama communication laga dhaxeeyo ama communication laga dhaxeeyo male dawladda Kenya way wada joogaan oo hadda marin kumali laakiin wax anaga laga dhaxeeyo oo hadda xiriir ma jiraan. marka dhibaatadan aad sheegtay inay soo socotay ilaa markii ay ciidamada Kenya Soomaaliya soo galeen ma jirtaa cid aad uga dacwooteen idinku ma isxilqaanteen odayaal baad leedihiin deegaan baad degantihiin ma baxdeen oo cid ma u dacwooteen? in badan aan sameeynay oo Jubaland kala hadalnay markii wiilkan dhimanayay iyo markii wiil adeer waxa uu ku dhintay yar kale ku dhinteen weerarley email u dhaxayso faafadun ka faro mareen ilaa saacada hadda hadlayno waan ku sheegay waa qoys kaliya laakiin deegaanka dadka degay waa soo ku sheegay way ka badan yihiin dadka ku dhamaanayo oo Kenya sahayatay 300 ay ka badan yihiin ma garad sideed ku diiwaan gelisaan dadka dhibka loo geysto waxaad tiri 300 qof baa dhimatay xisaabtaas sidee ku haysaan? diiwaankan ayaa dima waqala diiwaangelin ma hayo laakiin hadda inta aan garanayo oo hadda ani aqoon u leeyahay waa gaarayaan konta ka badan inta aqoon u leeyahay. kaas wuxuu ahaa dhaqane Abayle Cilmi oo u waramay wariye Cabdishakuur Casoowe. dhanka kale ee maamulka Jubaland ayaa guddi u xilsaaray arrintan ka careysiisay dadka ku dhaqan deegaanka ka tirsan gobolka Gadow ee koonfurta dalka Soomaaliya. gudoomiyaha guddiga la magacaabay ahna wasiirka amniga maamulka Jubaland Cabdirashiid Xasan Cabdinuur oo loo yaqaan Cabdirashiid Janan ayaa isla wariye Cabdishakuur Casoowe uga waramay waxa ay hawshoodu tahay iyo talaabooyinka ay qaadayaan. guddiga loo xilsaaray dacwadan ka dhacday waxay shaqadoodu tahay inaan shacabkayga dib gaaray aan mas'uulka u ahayn deegaanada aan wax la ka ahayn
wixii dhacay marka goobjoog dowladdu kama ahayn oo meeshu waa meel miir oo tuulo ah wixii dhacay in la xaqiijiyo guddigaas ku salaysan yahay macnihiisa iyo shaqadiisa haddii rabbi idmo waa gartay marka ilaa hadda ma waxaad leedihiin wasiir arrintaas ma hubno inay dhacday in kale iyadoo dadkii mudaharaadayaan oo caradii looga jeedo warbaahinta maxaad xaqiijinaysaan walaalow arrintaas dee dhacdada meesha ka dhacday meesha magaalo ma ahan waa miyiday ahayd xuduudda Kenya iyo Soomaaliya ay leeyihiin waxaana la keenay qof meyd waxaa la keenay degmada Elwaq sida almidia aan ka wada arkaynay oo qofka uu ka arkayay midiya laga arkayay rabad ahaan ay noo siiyeen mas-uuliyiinta degmada Elwaq dadka gudoomiyaha ugu horeeyay shacabka intaba oo inay meesha wax ka dhaceen oo dhacdo meesha ka dhacday oo dadku dhinteen way caddahay inaan isku imaano guddigii tagna meesha ay wax ka dhaceen shacabka iyagii aan la qaybsanno wixii dhacay kadibna wixii xaqiiqo oo noo soo baxdan waxaa la wadaagi doonaa haddii rabbi idmo bulshadooda iyo meesha cid walba oo barnaamijkaas ay qusayso dibna oo rabada ugu soo celin doonaa wasiir marka hawshiina oo dhan oo loo shiray wasiiradii oo dhan laba wasiir baa hadda guddigan ka dhex muuqata ma waxay ku saabsan tahay oo keliya inaad shacabkii u tagtaan oo aad tacsida la soo qaybsataan mise tallaabaad qaadaysaanoo waxaad tihiin dad ka caraysan wixii shacabka ku dhacay walaal horta waxaan rabaa inaan ku xaqiijiyo shacabka Soomaaliyeed oo gaar ahaan koonfurta Soomaaliya ku nool dhacdadan kuma cusbo way dhacdaa dalka Soomaaliya saad ognahay argagixiso caalami baa ku dhex nool oo ka dhex dagaalamayso argagixisadaas waxaa la dagaalamaya ciidamo Soomaaliyeed iyo ciidamo amisom oo dalka nabad ilaalin u jooga intaba waxaa dhacday sidoo kale in ciidamadaas la qarxiyo meel shacab dhexdiisa loo dhigo miinooyin dhacdadaas marka ay dhacdo kadib qofkii dhintay ma ahana kii ka badbaadiyay ciidamadaas waxay sameeyaan tilaabo ama xabada furaan tacshiro furaan shacab baa ku dhinta ku dhaawacmo hanti Soomaaliyeed baa ku burburto dhibaatadaas asliyan waxaa iska leh markii dhinac laga eego ciddii tumaysay falkaas oo kamiinadaas aastay ama qaraxaas geysatay laakiin ka jawaabistii ay ka jawaabahayeen dadka dhibka loo geystay shacabka Soomaaliyeed buu khasaare ku dhex gaaraa kuwa barnaamijkaas samaynayana shacabka ooma naxaan shacabkuna dadkii barnaamijkaas lagu dhex samaynayo inta badan xoogaal kama oo kamitii ay la mid tahay sidaan ognahay ama aan nagu maqaal aanu hadda meesha ma tegin ciidamo Kenyaan oo jid maraya qarax loo dhigay loo geystay khasaaro naf iyo maal intaba leh ciidamaduna waxay sameeyeen falcelin oo dabcan eedii ay dadka ku arkeen bay dib u geysteen sida hadda nagu maqaalka laakiin annaka dawlad ahaan maadaama aan mas'uuliin nahay shacabkaygana oo cabtay midna aan arkayno مسؤولين أن نحن من الوضع ما حد يجي واحد إنه داعي أنا شعب كبير لك بسنة واحد داعي كدنا واحد تلاقوا إنه آدم نعرف أن كثرين كنا مركي أنا واحد حد يجي كده بنسمع دورنا هذي ربي إني عبد الرشيد أديك وحتى وزيركي أمنية ولا صعتها شعب كلفت جودا سامين تأي كليهن دعوين كأمن دربة هالكاس كدعاء والشعب كلفت جودا أي دباتين بدن كلا كلمان مرك مقولتها هي إن سئون أي أصحنان كران إذا ماذا كان يهالكاس جوجا هدي أنتي إيجا دبلوجيستو إيجا شعب كدبلوجيستان أي سئو صحيين ولا ما عن تاسح معهم منا أهم كلمة دار كل فاس طبعا قبل كيزور شرحاً كل دري مركز سلام وكلفل أولعه إذا ماذا أمسهم أم قوة الصومالية أو قرح على ربك سوا أي كانوا يحسنون في العلم طبعا أنت حجارين معنا أنت كلا ماشي بكل بيان حبة الإسرائيل هدي مركز أي دعوة إن واحد سوقاتين أي نقطان إن دتك الوحيلي شعبيين maxay tahay talaabada idin qorsheysan ma waxaad la xisaabtamaysaan taliska ciidamada Kenya ee gudaha Soomaaliya idin la jooga mise dawladda Kenya aad la xisaabtamaysaan ma finta wala arrintaas arrin ugu cusub ma ahan shacabkayga haddii aan xaqiijino wixii gaaray inay shacab ahaayeen oo dhibka gaaray inuu shacab ahaana waxaan la xisaabtamaynaa cidii dhibka u geysay wada kasta oo saliim ah oo dadkayga ku daaweyn karaan oo anagu aan ku daaweynayna mari doonaa haddii alle عبد الرشيد جنان وزير كأمنية مملكة جوبلان أيوة هكاسو ورمي عشكور عسوي قضب كاسي قار كمدة دقيستياش BBC دا أيادين على فيسبوك عربتدو دا كاسو ديبتو حكم دا أحمد شينا ويتشوغا هرقيسا وعاولية وان بوغادين يا قد لوح الساري مملكة جوبلان أو الساري دباتا دا كتاقن قبل كقدو وحان الرجين يا إن أي صوب بندقي دونان حل أي كدير صدان داد كرير قدوان مهسنتين BBC أدوغنا واد مهسنتاي BBC waxaad ka heli kartaa wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo caalamka oo dhan maalin walba